بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وناكسن ملك استفكر جكتان دنيا دافية سر رواد ورهدا إلى جوكتين وكم هالسنتين هدا عسوتين ويلكم كمركين صفات إن هل يلابو حربانا كده هو هذا سر العلم إسماعيل دنان شكديسي إسماعيل دنان ولاشيس وهذا شو أفرطي إن before إسماعيل دنان هذا عبد الرحمن وهذا الشيء إن ويلك اللي راد سي كي يوتيوبر كأوجرهم طبعاً أيام كوقات عبايدا نروح بدنا ننتظر عليه خمر كان كراميل بانو كسويني 4 to 5 for فلور كان كسهل ساعة عبايدا نروح بدنا صح إن سي كي هذا الكي ويري بارون كأها أنتي وحليس للحمرية أم وحليس للحياعي sababtana waxa cadaysay isaga walaashii waxaanu ku kala horeynaa horta Safiya Tusmo iyo Hodan Cabdiraxmaan maqac baa ka yeedhaban dhahaa Safiya Tusmo iyo Hodan Cabdiraxmaan sibay u hadleen wanaagsan waliba laakiin wiilka walaashiina sidan ay u hadashay de kulay mar walba qofka familkiisa ayuunba xaqiiqada u runta ah marka bal horta walaashiisa inuu soo wada dhawaanayna Ismaaciil markuu tagay wadanka Mareykanka uu ka gudbay xuduudii Mexico waxa qabatay ilaalada Mareykanka xuduudaha kadib waxa lagu xiray gobol la yiraahdo Luciano after 3 days marka ay dadku ku jiraan goobta ay ku xiran yihiin immigrationka waxay wacdaan qof walba adresska uu haysto iyo qofka uu rabo inuu ku dago dan Ismaaciil hawshiisu waxay ka bilaabantay inuu adresska dadkii uu ku ahaa ay iyagu cadaadiyaan oo ay halkaas soo gaarsiiyaan oo ay teleefanadii iyo waxyaabihii uu kula xidhiidhayay oo dhan ay ka qaban waayaan taasi waxay sababtay Ismaaciil halka imika uu taagan yahay inuu joogo hase yeeshee annagu waxaanu aragnaa hal mid oo muhiim ah idin sheegaya ninka la yiraahdo Ismaaciil Danan nin rag iyo rabbi weeyaan raqoreecdo oo qadeeyo casheeya ayuu ka dhashay magaaladan degan hadaad sida kale aan idin ku dhiga hadalka sida idinku wuxuu fahantaan nin lacag u xiran maaha nin lacag u baahan maaha nin lacag loo aruriyo u baahan maaha nin lawyer umada Soomaaliyeed uga baahan maaha intaba inaad yar u haystaa dama fahanteen aan xog bahayn oo Ismaaciil arintiisaba aan hayn iskaga soo dhaxdacayo oo umada Soomaaliyeed isku tusaya si ay u sheegaan xog aan jirin way jiraan fanaaniin in la hayba ama gobolku ka soo jeeda degan wadanka Mareykanka hase yeeshee ma jiro qof anaga nala soo xiriiray ma jiro qof aan oran karo waa fanaan oo arinta Ismaaciil buu meel ka galay ma garanayo waxaan ka ahayn inaan social media ka arko iyagoo ka jawaabaya xataa dadka gacanta ku haya hawsha Ismaaciil markan weydiiyo ima sheegaan inay xataa xidid la leeyihiin Ismaaciil fanaan buu ahaa Ismaaciil Danan sanad iyo xoogaha inuu xabsiga ku jiro maxaa sabab u ah ana xog ogaal waa markii familkiisa laga soo tagay si fiican ay dhigeyso saawada ogtiin ba America markii gidaarka ama derbiga laga boodo waxa la sheegtaa address inta badan dadku address bay sheegtaan qofka address ku sheegatay baa la wacayaa kadib qofka confirm haduu dhiibo yiraahdo ha qofkan waan aqaana waad ii soo diri kartaan waa lagu sii deynayaa ama free ha lagu sii daayo ama lacag yar ha lagu sii daayo sida anigoo kala hadda familkeyga lambarkooda aan sheegaa la wacay way qabteen way la hadleen waxay yiraahdeen ha waa wiilkeena waa noo soo diri kartaan lacag yar 5 kuna ama aragtay lagu ganaaxay 5 kuna familkeyga dhibeen waa la sii daayay Ismaaciil Danan waxa ku dhacay markii uu xabsiga soo galay lambarkii uu sitay iyo adresskii warqada ugu qornaa gaaladii markay waceen Ismaaciil Danan waa lagu booday cid kasto America joogta qisadan way ogtahay Ismaaciil Danan waa lagu boodo waxa la yiri maba naqaanaba waxaana ku booday qofkii uu ehelka ka dhigtay uu adresskiisa sheegtay uu lambarkiisa sheekadan isku murugtay waxaan rabaa inaynu isoo daba raacino horta in wiilka walaashii qofka runta sheegaya waa wiilka walaashii mar walba gabdhahana may oran Hodan iyo Safiya u tagnay laakiin waan ka warhaynaa bay dhaheen
warhayntiina waxaa la isku haysto waxay tiri walaashii cid ka warhaysaa ma jirto iyo cid u tagtay haddaba qofka runta sheegay waa Kinsey sababtoo ah Kinsey xog ogaal buu ahaa dad badan baan dhagahooda siinin laakiin xaqiiqada dhabta ayuu taabtay iyo sida wuxuu jiraan iyo wiilkani wuxuu sababta uu xabsiga xilliga ugu jiro waan yaabanaa anigu markii la yiri wuxuu yiri xabsigan ku dhex sugayaa sharcigaygii aad baan u yaabay waxaan isagoo xorriyad heli kara fanaan uu yahay wadankan uu imanayana uu de uu xitaa wax samayn karo waa nin fanaan oo aroosyadu ka heesi lahaa xaflado qaban lahaa waxaasoo lacag ku samayn lahaa sabab buu jeel u dhex jiifaa sharcigiisa banaanka ku suglaa sida wiilasha kale taasaan islahaa laakiin waxaa la yiri ninka si keeya xaqiiqada runta ay baydin sheegay dad badan oo xaqaganayna waan arkay hadeerna dad badan oo wiilka ayra si keeya runta sheegayna waa arkay oo youtuberka ugu runta badan ayaa tahay siinkay oo salaamaya waxaan soo qaadanaynaa shariifo xitaa ninkii wiilka jeelka ku xidhay telefonka ka qaban waayay yiri ma aqaani soo qaatay hadduunan ajaafaynin kolley dadka iska hadla waxbay iska dhadhaane kolley wuxuu yiri ninkii waa kan jeelka ku xidhay wuxuu kaloo yiri hooyo Cabdiraxmaan waxay difaacaysaa isaga bal anigu sheekadan baraha bulshada baan ka arkaa waxaan xuquuqaal uga ahay ma jirto laakiin meeshan khaladaadka badan ee jira waxaaba cadaysay wiilka walaashii oo hadalkii oo dhan inuu cadaysay inay iyagu looyarka kala baxayeen in lacaga badan laga cunay inay rafaad badan soo mareen in wiilkooda markii horena dadkii isku soo haleeyay ay xumeeyeen waxaas oo dhan waxay noo sheegtay wiilka walaashii shariif oo kulli shariif dad baa la soo hadla ninka shariif waxaan sii dad baa la hadlo wuxuu dhiibay calaa kulli xaal waxaan ku soo dhawaanaa shariif la dhageysta akhbaarta ugu dambeysay fanaanka Ismaaciil Daran Mareykanka ku xirnaa ninka ka dambeeyay inuu intaas hal sano iyo bar xabsiga ku jiro asaga iyo rag kale oo gudabiirsi maanta xabsiyada Mareykanka ku jiraan ninka lu gooyay ninkaas waa Ismaaciil waxa la Cali Kareera lahaa waa nin ganacsada oo gudabiirsi ka ah Jibril Yunis ka ah mataqaan reer Axmed wala yaqaan laba garaash iyo maqaayado wuxuu ku leeyahay mataqaan Minnesota xaafad la dhahayo mataqaan Chicago Avenue jidkaas wuxuu ku leeyahay maqaayad oo cuntada lagu cuno Soomaalida ka cunaan laba garaash waa leeyahay ninkan aramaad inaad ii sheego waana idin sheegay aniga Salma Daraad ayda dhahay ninkaas ana idin keenayo magaciisa iyo qabiilkiisa iyo sawirkiisa maanta waa kana hortiina hor yaala dhamaan meel walba joogtaan waxaan ka codsanaa muuqaalka inaad meel kasta isku dirtaan qisada dhabta iyo xogta dhabta Ismaaciil Daran ku dhacday iyo ninka lu gooyay iyo intuu maanta xabsi uu ku jiro safiitus waxay sheegaysan inay been tahay meeshan inaan ka beeniyo hodan Cabdiraxmaan waxay sheegaysan raba inaan meeshan ka beeniyo wax ay ka ogyihiin malahan sidoo kale muuqaalkaas hoose waxa waaye maanta waxa soo hadashay Ismaaciil Daran walaash asal dhalato ku aabi kooya daada ka weyn oo la dhahayo ayaan Maxamed Barqadle oo beenisay in gudabiirsiga fanaaniinta sida tusmo iyo hodan inay mataqaana la xiriireen ay ka warqabaan inay been sheegtay dadka maanta xogtiisa ka warqaba xabsi u booqdo arintiisa maanta waxa way ku hayo oo maanta lawyer fiican iyo lacag fiican loo aruurinayo oo si xabsiga loogu soo daayo lawyer fiican damiin uga noqdo waxaas oo dhan ragga wada dadkooda waxay dhahdeen waa dadaan u dhalanay tir gudabiirsi walaashiisa dhahday qof walbana hagalo YouTube iyo Facebook codkaas soo dhageysto ayaan ay leedahay Salma Daraad waa idin sheegay horta meeshaas waxa ku ceeboobay waa taa idin sheegay oo nahabiin noqday labadaas gabdhood fanaaniinta gudabiirsi waxay aad ayaan waxaan uga xumahay waxa ku dhacay wiilkaas fanaanka Soomaaliyeed waxa ku dhacay aad baan uga xumahay qof kasto damiir Soomaalinimo ku jiraan ugu dhibaya waxa wiilka ku dhacay waa wax laga xumaado xaqiiqatan walaashiis ba afka furatay oo wax walba sheegtay aad baan uga xumahay Ismaaciil Daran fanaan da'yar oo cod halaasiye oo cajiib buu ahaa laakiin garab la'aan ayaa ku dhacday oo uu jeelka u dhex jiifaa maanta sababtoo ah waxa weeyaan wiilkaasi wuxuu waayay qofkii telefonka u qoray ee uu ku address garaysnaa ayaa xumeeyay oo qaban waayay si kayba inoo soo sheegay haddana shariif baa inoo sheegaya walaashiisa inoo sheegtay intaasoo dhan marka laga soo tago wiilkaas waxaa ku dhacay garab la'aan baa ku dhacday dadkii
uu soo biday garabka uu isyiri waa ehel kuma baylihin doonaan waxbay kuu qaban doonaan isagu waa caan xitaa waxaa la sheegayaa in wiil kale kula jiro oo la reeraa waa laga yaabaa in qaar kaloo badanna ay ku jiraan oo dee dad aan baraha bulshada imanin ay ku jiraan because qofka magac leh unbaa laga hadlaya la buunbuuninaya qofka aan magac lahayn cidima oga waa laga yaabaa qaaran xitaa magac lahayn inay ku jiraan oo dee aan ahayn dad la yaqaano qofkii la yaqaanay fanaanka caanka ahaabaa sidaa la leeyahay oo weliba sheekadiisii qof waliba meeshuu doono ula orday oo meeshuu doono uga hadlay inanta walaashiina wax walba inoo xaqiijisay walaalkay bay tiri isagaa hantidiisa haystay halkan runtii uu sheegtay iyo dee wadankuu yiri waa ka imid baa loo sii haystaa waxaasoo dhan waxa ugu waancacanna waxa weeye qofkii uu adreyska ka qaatay baa telefoonka ka qaban waayey oo dhibaatadaasoo dhan u geystay waan yaabanaa aniga idinku lahaa anigu sheekadan ma garanay meeshay ka waalan tahay ummadii oo dhanna way isla kacday fanaanin waaweyn oo caano reerka oodayna way hadleen oo dee waxay dhaheen wiilka iyagu dhibaato ma qabo waanu ka warhaynaa isaga dee iyagu waxay hadleen isaga doorashadiisa inay tahay inuu xabsiga joogo laakiin walaashii wixii oo dhan waa beeniso waxay tiri walaalkay waxaa ku dhacday garab la-aan waa xanuun marka qofkaagu intuu kaa xidhan yahay uu meel dheer kaaga xidhan yahay way la dadaaleen wax badanna way u qabteen dad badanina lacag bay ka cuneen way dhaceen oo xitaa iyagiibaa naf laga sii dhexraadiyey dad ay ehel moodeen ba intay lacaga u dirsadeen lacagihii cunay inantuna way sheegtay shariifna wuu sheegay lacagihii looyarada loogu qabanayay cunay marka dhibaatooyin badan wuu ku dhacaya qofku markuunan wadankii isagu joogin oo uunan dee xogogaalo ahayn lacag lagama cunin dee halkan joogi lahaayeen horta aad baan uga xumahay fanaanka codka halaasiga ale mar unbaadna soo bixi waxba ma leh waxaa la yidhi markay dani ku haysa dadka kale ogaataa marka ay dani kuu soo qabato aad qofka usoo baahatid unbaad ogaataa inta hore dadka ma kala baratid dadka maalinta dani kuu keento unbaa la kala bartaa ismaaciil danana uu ilaahay nabadgeliya khayr kaaga soo daayo jeelka waxaan u rajaynayaa adigee waalidkaaba farxad iyo adigoo xorriyadaada intaad heshay sharcigaaga intaad heshay banaanka qayrkaa kula daanshoonaya ayaan alle kaaga baryayaa ilaahay xorriyaddaa diba kugu soo celiyo waxba male maalmaha aad kuftid ama aada leecdid dadkaa la kala bartaa waxaad kala saaraysaa dadka inta ku wacan iyo inta ku xun ayaad kala saaraysaa taaniyan waxa weeyaan waxaa anigu oran lahaa waxaa kaaga khayr badnaa ninkaa reerkaaga ah eed ehelka soo biday mid aad asxaabtihiin oo adreyskiisa soo qoratid wallaahi bilaahi tallaahi kaasaa kaaga khayr badnaa because aniga waynu Soomaali wadaagno hadda adreyskayga soo qoran lahayd xitaa ma aanan sameeyeen waxaas kugu dhacay sababtoo ah waxa kuu samayn lahaa intii aan awoodo marka dadka sanberi aad ehelkaaga moodida dadka ka xigsatid waxaad ogaataa inay qaar Soomaaliga wadaagtaan kaa xigaan anigu halkan jooga ayaa xoogaa culays isugu ka yimaadeen waana soo guro state-kan imiday wiil aan Soomaali wadaagno walaalkaya ayaa culaysadii oo dhan iga dulqaaday Soomaali baan wadaagnaa hallo kuwa aan moodayay inaan dad isu xigno ehli yihiina dhulka igu jiideen marka waxba male markii dani ku haysa dadka kale ogaataa baa la yidhi marka aad leecdo cashar wanaagsan baad helaysaa wada fiicanna way ku baxaysaa guulayso baan ku leeyahay qofka neeftaada kugu darto unbaadna walaaltihiin taas everybody ha ogaado wallahi qof waliba maalinta aad baahatid dadka kale ogaadaa markay dani ku haysaa dadka kale ogaataa dan bariyadooyaal herkoodu la konkoday peshuha dogra adna ursu dabarle intoy kaga daateen labadaadiyaa dilay reerkii ka dulguriyo dariskii wax kugu tara markay dani ku haysaad
dadka kala ogaata ana maanta dabacsani cawarkay damqanayana ana maanta dabacsani cawarkay damqanayana dayaniyo adaa jira wax daweyn karaaye adigiyo dadnimaada adigoo anigu digan anna aanan kugu dayan adigoo anigu digan anna adigoo anigu digan anna aanan kugu dayan nabarada damqanaya waa dabar waqtigu siido deeqdii allana maqan wallahi maanta heestaas u qaadayaa guulayso baan ku leeyahay ilaahay ha kuu fudaydiyo howlahaaga waalidkiisa walaaladiisa ehelkiisana waxaan leeyahay ilaahay qalbiga haydan dejiyo qof waxu ah ma jiro walaalkaa kula dhashay mooyaane bini aadan kale weligaa garaba ka sugin mid soomaalinimada isu keentay oo diirku isugu keenaxay oo bini aadantinimada qiimeeyo mooyaane intaasna idin oranayaa